farxiyaan ahaye mustaxiil inaa been idila hor imaado horta degdeg waxa la dhahayne maba aqaanaba waxaan ahay qof miisaan dad iga waaweyn ayaan ka miisaan culsahay waxaan hubinne lama soo istaagi meeshaan wataaniyan qof bini aadan inaan dulmiyo been aan ka sheego danta igu raacaysa maxay tahay haddaan rabo bariis maan ka bariisaysto munkurka iyo balaayada iyo faaxishada wax lacag lagu helo oo dhan waa jiree oo halka haddaa soo fariistay intaasoo 100 oo kun i daawanaysay maan sameyn haddaa marba aniga aan dambaaboyo marba aan qof bini aadan aan dulminayo shalay markaan difaacay gabadhaas qofaan xaqiiq aan ogeyn maan ahay markaan soo istaagay wax waliba anoo ogaa kusoo fariistay meeshaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي سلام دمان أنتوا كحرين يوتيوب channel كيغا فرحي سومال أوفيشيال دتك ليغا بيري ميل كستا أجوكتان هبين هدي تهبين كدي وعنات مالها هدي تمالنت هدي وعناتو وحكستا إلي تهدي وعناتو هداد عافمات قبط الله كوسيادي هدا حنون دريمي سنة الله كشافيو هداد فرح سنت الله كوسيادي هدا مروك سنت هين مروكت الله كاسا سودو مانت وحان أسو فريستي ساكي inaan commentiyada dadka qaar soo qorayay shalay markaan anoo careysan soo galay carawa shaqo shaydaani baa waxa soo qoray degdegin maxaa ka ogtahay maxaa yeelay maxaa go'ayse fudeedka jooji kanay ka dhacday aslan ani farxii cabdimuude waxaanan hubin kuma degdego hadda waxaan hubin kuma degdego miisaan maxaa ahani ma ihi dadka iska hadlo haddaa lacag iyo ma aragtay iyo views raadis aan ahayne wax badan views laga raadiyo oo xitaa views waali laga helo aab wuxuu ilaahay loogu wada furnaay waxaas ayaan sameyn lahay maalin kasta qofaan ku dhignaa lahay maalin kasta qabiil aan cayn lahay maalin kasta shakhsi aan cayn lahay maalin kasta muusigaan ku niiki lahay maalin kasta jidkeeda qurux badan soo bandhig lahay naagna igama qurux badna alxamdulillah haddaa views rabo waay لكن nothing views أنا مرة بو أوكي وح أنا الصح أوجه أو حقيقة أنا أنت اللي سوفريستا شالي مركا جوادس دفاعي وحن أوجه أنكو صعدان كدولا ينكهرلا فهمتي وحن كدولا إني جوادس يويلكس كلفوا جاي لو جور كلا ديكنا أنا فرش قيس كل نسكولهن maxay ugu soo xigta hadane dadka aan dhahay waad qaldantiin xitaa videoga ee ka soo soo dhigtay إيشك كمال كنال كيسة كسو هذا الشيء حتى فيديو قصدك مرة إيش صدر حداي محي يقولوا اسمع حكوا ده محيتري هذا لو حيتري مركو ومركي دب أنت لا صوت جر هدا آمن واي إسلا شل حلقة اللي تساي جركي قيبتي لقى صوت جري هدان ضل اللي هاي حتى منكر لهن كست إلا دخل بالله صدر ليري محي كوضع إنتاير كالله ilma dhedheen lagu mahel ilmana kafta ma galaanay dhahday gabadho muhiim ah inay idii sheegto ilma dhale idii soo ristaagto laakiin ninkii weeraraysa iska celinaysa wixii oo ka hadlay marka dhahay xalay soo jar kis yar oo leedahay waxay leedahay kis yar ee waxay leedahay waa bid hadda idii sheegay maxay ahayd kis yar ee waxay leedahay haddaan dhali lahaa xitaa ilma haddaan dhalin ma qarin lahayn haddaan dhali lahaa xitaa ma qarin lahayn ay leedahay ale soo diray anoo intii ku murusan oo video aan duubay ilaahay xaalkiisa og yahay aan ku garbaashay xitaa gabadha weyn oo ifraax la dhahaay ifraax ilaa hadda ay la qaldantaane waayo waa hooyada waxa aad leedahay halka inta la soo istaagtay ana inta wacaya waxa dhahay kan waay kan ana no hooyada waxaad ku tilmaamaysaa in ay sinaysataa ku tilmaamaysaa hooyada وقلدان هرتاس وقلدان تهي هلو جاي فيديو قوي قلدان تهي وما أحين هوي معان أمي عدنا لما سنو يا هوي سدح مر 3 مرة أي حق أولاد هوي ذا أبهن هالكس أيو حق ليه ما أنت هدا قبري ولقولي جنو قف كل جوجما جعوا وهوي ذايا هوي عد لما سنو هويني ما أنت هذا اللي يقرع ما هني ما هن أنت سو استعتد عاد كاميرا إسك قرص هذي أنا أنت واحد أو حدا هو ذي واحد أبي أنا قبو بقالت ويكون قلدنت إنها تصل هذي نينك بهالح حفالتمه أبها بهالح حفالتمه لكن أدي هنا كسو هذا الشيء ما هي تاس حقي قلك وحكوسي هرتي عن أصل أبنايا قبل لها هني مؤمن
waxaan ku dhahay haniyey ani marka ii sheeg waa idii kala waday gabadha hadalkaas waxaan arkay markii dambo waraysi uu ka qaaday wiil youtuber ah waraysigii markaan arkay baa waxaa maaragtay ii sheeg ay leedahay aniga weligeena maba guursaninba ninkaana igu horreeyey ilmana maan dhalinba ya oo anaa xaqiiqda ogahay ilmaha qaarna inta ku dhashay qaarna xaggaas maxaa la ii sheeg ay ku dhashay isbitaalka ay ka shaqayso xitaa xaafadda ku yaala isbitaalka ay ka shaqayso ay ku dhashay xitaa maxaa kugu kala fikra ani marka Soomaali waxaan far dadkaygii family farxii Soomaali official farxii waxaysan hubin ma idila soo fariisanaysa meeshaan laba mid marka gabadhan sixir korta lagu sheegaayo taas ma aaminsanani mana jiro sixirka hadda la sheegayo ma jiroba sixirna ma ahanba waayo qofka la sixirado qofkii sixirada u hoggaansama waxna kama qariyo xaqiiqda u sheegaa waa u duleysmaa waa laga dareemaa ii sheeg maxaa la dhahaa inuu sixir haayo kamaal cabdulle wuxuu gabadhan ku sixirinayo meesha uguma jeedane kamaal adoo wax sixrinaayo gabdho oo waxaa joogo Yurub iska dhaaf Yurub waa iska yaqaana waa iska xeer America iyo Canada gabdho joogo Canada iyo America oo baasabooro haystaan oo wada buux ah kuwaasoo sixrin lahay kamaal cabdulle adoo wax sixrinaayo oo bilyaneer iyo naaga lacag laho intaasoo shirkado iyo kambaniyaal laho lacag leh boo sixrin lahaa kamaal youtube-ki adduunka dhan waa ka guuri lahaa saasaa loo wadi lahaa gaari cad oo kala jiidana lagu wadi lahaa woo sixrin lahaa naagaasoo sixrin lahaa runta isku sheeg gabar ka shaqaysanaysa isbitaal oo shaqaale isbitaal mishaar suge ah meesha wuxuu ka sixrinaa anigu ma jeedo laakiin adiga ra'yigaaga hadaa waa qaadan kartaa laakiin aniga maleega dhaadhicinahay taas adeer waa kuu xagga markaa ka soo laabto waxaan ku dhahay gabadhan sixir horta xaggii ka gey maskaxiyani qof waanan uguma jeediyo waxaan u jeedaa qof ya say u hadlayso hadalkeeda ii sheeg mumkin hal mid aa dhici karto gabadhaas inuu oo stress waxa lahaa jiro oo waalidna aan ahayno ii sheeg mama dhihi kari xitaa qofay ku xumeynaysa dadaa dhahay ninkay ku xumeynay waxaan arki jirnay nimanka Soomaalida 80% oo naxariis laabayaal oo qalbi dhagaxyaal oo ilmahay dhaleen maxay qaarkood inkiraan qaarna inta fiiriyaan ka jeestaan oo maalintii fura habarta ugu dambayso yani ayagana ilmaha furaano kasii jeestaa arki jire ma hadda waxaan ugu bilaabatay gabar oo ilmo inkirayso masana ilmo dayacayso masana ilmo ka dhaqaaqayso waa wax nagu cusub faate laakiin saaidna hadda wax saaid u cusbana ma jiraan oo naaga saas dhan waa arkay anaa arkay aniga naftirkayga kula hadlaaya baan arkay gabar ilmay dhashay ninay shukansanaysay inta u qarisay oo anigana seg anoo iska dhahay ayagoo meel wada fadhiyaan intaa war lasku keenay leedahay haye markaas ana shugrideeda ii joogtiyo oo maaragtay 4 sano meelaas ahayd shugri gacanta ka wada waxaan ku dhahay haye tawcil baraaw amal culiga wadaaye ma adi gabarta wadaaye adi ilmo kale ma dhelaysa ma lagu dhahay markaas shugri ii joogtay markaas waxaan ku dhahay tanba intaas cunigeeda sheek soo tagtay waa isfiiriyo dadkii meesha joogay ninkay shukaasanaysa ku jira waxayna ka qarisay ilmo inay dhashay markii la soo kala tagay dadkii way aamusay waa leefi fiiri kadib waa sheekaal iska sii watay ilaa dadkii meesha jooga dhanbo wiilka asxaabtiisa iyo waxa looga sheekay inaysan ilmo dhalin marka Soomaali ma ahayn meel kale ahayd yab ayigi waxaa dhahay saa maxaa kugu galay kale un isbadbaadin iyo waxyaalo badan ka hadashay marwayna hadda inta uga hadlay laakiin wax igu kalifay ina aniga ilmahayga qarayo ma jirto aniga wiilka 15 jir haduu yahay ya culiga aniga dhalay haduu ka yar yahay xitaa to aniga jecel yahay ilmahayga noo igu jeclaana manina inta jeclaada ilmahayga uga ha yaraada ha weynaado I don't care wuxuu yahay ahaado nin yaayo oo bir banaa cid la kaaga tagay sa ilmahaaga waxaad
ugu qarisa ma jiro gabadhan marka war jirra cankaaro imaanaya wixii ku kalifayna ayada sheegi doonto kulley waa la arki doonaa aniga waxaan isleeyahay aqabad ku kalifaysa ilmaheeda inay qariso intaasoo la shukaansanaayo oo la qarisa aniga waxa meeshas waan arki doonaa waxay noqotaba laakiin aniga waxaan idin sheegaa family farxii Soomaali official gabadha ilmaha ayada dhashay xaqiiqdana og wax kastaan ogeeni inta lama soo fariisto cadeymo badan ahaay hada ugu talagal idin hor keeni karaa ma fahanteen oo cad laakiin ma rabo inaan waxaas dhan hadda ka hadla just waa arkaynaa kulley arrinta saas ay u qasan tahay meesha ku biyo shubatane waa isla wada joognaa waana wada sugi doontaa waana idin keeni doonaa insha Allah waxaan idin tagaa sidaas iyo nabadgelyo boqolkiina waa u dhownahay dee hadda waa naga caajistay please share garee videogan la meel sare gaarsiiyo ya meel dheer gaarsiiyo si oo boqolka inooga xirmo insha Allah dhawaan uu dhadhow yahay waxaan idin tagaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi